إن الفجار لفي جحيم. الله سبحانه وتعالى أو كتابتي منزلك ومحكم كان ugu cadeeyay dadka baariyaalka ah ee daacadiisa ku dadaala inay nicmada iyo raaxada alla dhexdeeda ku sugnaanayaan. dadka fujaarta oo aan diinta lahayn naarta jaxiimo la yiraahdo inay feenan doonto ayuu Allah noo sheegay subxaanahu wa ta'ala. nicmada aakhiradu waxay maqsuur ku tahay oo ku gaaban tahay oo yeelanaya waa dadka mudiciinta ee rabbigooda adeecay subxaanahu wa ta'ala. nicmadaas ayadana waxaa helaya dadka ka nicmaystay xagga qalbiga oo iimaan iyo cabsi alla ku nicmaystay. nicmada aakhiradu waxay gaar ku tahay dadka iimaanka iska leh. daarta barzakha iyo daarul qaraar waxaa raaxa helaya waa dadka rabbi ka baqay subxaanahu wa ta'ala. saddex daarood ayaa jirta: daarta adduunyada, daarta barzakha iyo midda daarul qaraar la yiraahdo. daarta adduunyada mu'min iyo munaafiqba waxbay ka wada cunaan, laakiin daarta barzakha oo qabriga ah iyo midda la yiraahdo daarul qaraar oo ugu dambayso dadku janno iyo naar mid kale tegayaan, dadka rabbigood ka cabsaday bis ayaa ku raaxaysta. haddaba walaalayaal, dad rabbigood ka cabsada ee jannada alle rabbi ka rijeeya oo daacada alle u dadaala aan noqono oo diinta islaamku siday tahay ugu dhaqma. wax walba oo dulli ah waxaa u sabab ah macsiyada iyo dembiga. caasinta alle haddaan iska ilaalino oon diinta u shaqayno, ilaah wuuna ilaalinayaa, dulligana wuu naga dhowrayaa in badan. haddaba walaalayaal, qofka rabbigii caasiya qabriga ayaa lagu cadaabaa, murug iyo tiiraanyo ayaa lagu sallidaa, xabadka ayaa laga ciriiriyaa, rabbigii ayaa ka jeestaa, daarta aakhiradana waa lagu silciyaa, ilaahay kayrkii mid ku xirma ayaa laga dhigaa, xagga rabbi ayuu ka go'aa, waadi kasta oo lagu halaagsamana wuu ku dhacaa. ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuuna ilaaliyo nagana bixiyo dhibaatooyinkaas oo idilba. haddaba walaalayaal, waxaan jeclahay inaan hadal yar oo kooban oon aada u badnayn oo aan dardaarana halka kan ka yidhaahdo, kaas oon u soo jeedinayo walaalahayga aan aada u jecelahay alla dartii, oo ah ragga iyo dumarka wada noolaan doona ama hadda ka hor wada noolba. run ahaan si gaara waxaan warka kan ugu soo jeedinayaa dad aan kalsooni gaara aada ugu qabo. waxaadna moodaa inay noqon doonto masalada tan oo mid anigana i khusayda, walaalahayga kalena khusayda oo ay ka faa'iidaystaan. waxaan idinka rajaynayaa walaalahaygow inaad ka faa'iidaysataan, markaad dhegaysataanna aada rabbi nooga barisaan inuu naga ilaaliyo dulli adduunyo iyo cadaab aakhira intaba. haddaba walaalayaal, halmaanka diinta la halmaamo oo rabbi dikrigiisa laga tago iska ilaaliya. qofka rabbigii halmaama waxaa ku dhalata cabsi iyo argagga xagga qalbiga ku timaada. dhibaato weyn ayuu alla ku sallidaa. macsiyadu waa shay aada u xun, quluubta ayaa ku jirata. macsiyada cuquubada ka dhalata waxaa ka mid a in qalbiga qofka ou jirado, toosnaantu inay ka baaba'do, diinta inuu ka inxiraafo, inuusan ka suulin marnaba inuu jiran yahay. haddaba dunuubta quluubta ayay aada u ta'siirisaa sida xanuunkuba jirka u ta'siiriyo. dunuubtu qalbiga jirooyin badan ayay ku keentaa. jirooyinkaas waxa looga caafimaadana ma lahan ilaa in laga tago dunuubta mooyaane. dadka xagga rabbigood u soconaya waxay ku dadaalaan inay quluubtooda ka dhigaan quluub caafimaad qabta oo daacada alle ku dadaasha. lianna rabbi wuxuu qur-aankiisa ku yidhi: yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalinta qiyaamada waa maalin aan xoolo iyo wiil waxba tarayn, qalbi caafimaad qaba oo nadiif ah axadka rabbiga ula yimaado mooyaane subxaanahu wa tacaala. haddaba quluubtiina hagaajiya, carabkiina xumaanta ka dhowra, daacada alle u degdega, ximihiina diinta ugu shaqeeya, xaqa dad isu garabsada walaalayaal ahaada, dad isu dardaarma noqda, dad dulliga isaga diga noqda, daacada alle dad isu toosiya noqda, dhib iyo dheef iyo dhibaataba dad isugu dulqaato isku jecel noqda.
hadal xun oo la kahdo dad iska ilaaliya noqda, qof walba qofka kale kuwa uu ixtiraamo ahaada, walaalo iyo waalid iyo muslimiin wanaajiya, saacad walba qabri u diyaar garooba, salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam aftiina ha ka qaadinina, sunnada nabiga waxaan ahayn dhaqan iyo cibaado aad alle ugu dhowaataan ha ka dhiganina, qur-aanka akhriskiisa carabka ha ka qaadinina, xifdigiisa ku dadaala, axkaamtiisa ilaaliya, si dhaba ugu dukada kitaabka rabbi adinkoo ku tadabburaya, waajibka ilaaliya oo sunnooyinka raaciya, awlaad barakaysan oo alla raalli garaysta rabbigiin weydiista, wixii dhibaato idinku yimaada alla weyne u sheegta, waxaad khayr heshaan alla weyne uga shukriya, qabri ayaa idin sugayo qurux darro loogu dhintee qur-aanka ilaaliya, aayaadka rabbi ha la yicinina oo walaalayaal dulliga dad iska dhowra aan ahaano. sidaas ayaana laka doonayaa. waxaa la garanayaa daartatan adduunka in laga tegayo oo daar aakhira loo socdo. axadkii shay jeclaada oo ilaahay kayrki ah oo ku jeclaada baadil iyo waxaan jirin waa lagu cadaabayaa. waxaa qofka muslimkaa laga rabaa wax uu jeclaanayo inuu alla darti u jeclaado, waxa uu gooynayo inuu alla darti u gooyo. haddaba walaalayaal, dadka boqorrada ah iyo ilmahooda hadday ogaan lahaayeen dadka mu'miniinta waxa ay ku raaxaysanayaan oo iimaan iyo cibaado alla ah, maalin horay layn lahaayeen, laakiin ma oga. adduunka waxaa ku yaalla janno, jannada adduunka qofkaan gelinna jannada aakhirada ma galo. jannada adduunku waa cabsida alle, waa ku socoshada diinta, waa ilaalinta xaqa, waa ka tegidda xumaanta, waa daryadaynta muslimiinta, waa naf iyo maal in diinta lagu bixiyo oo aan marnaba ducada rabbi laga cajisin. sidaas ayaa la yidhaahdaa. haddaba walaalayaal, dad sidaa u dadaala aan noqono oo rabbi aan ka baqano subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxaa yaa badan axadka la yacay naftiisa oo cadaab u shaqeeyey, adduun oo raqiisa aada u dabagalay, aakhiro oo qaaliyana iska iloobay. axadkaasu aad ayuu u yaa badan yahay. waxaase ka yaa badan axadka janno looga sheekeeyey oo aan dalabkeeda ku dadaalin, axadka naar looga sheekeeyey oo aan si dhaba uga cararin. rabbi qofka caasiyey ihaano ayaa ku dhacda. wuxuuna allah odhanayaa subxaanahu wa tacaala: waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim, ina allaha yafcalu maa yashaa. axadkii rabbi ahaaneeyo, wax karaameeyo oo ilaaliya uma sugna. rabbina wax alla waxuu doono alla samaynayo weeye. haddaba walaalayaal, ihaanada rabbi aan iska ilaalinno oon aayaadka alla ilaalinno. haddaba walaalayaal, wax ilaahay nagu dulleeyo oo darakaad naareednala kugu dejiyo aan iska ilaalinno oo aan daliilka ku dhaqanno. walaalayaal, haddaanan diinta isu dardaarmayn, haddaanan daacada kaalmo isugu noqonayn, haddaanan dhibkana soo gaara isugu dul qaadanayn, walaalayaal waan isku dambaabaynaa ee aanu kala tagno. haddaan axadba axadka kale waajibaadka u kicinayn, xaaraan in la cuno inaan qabno haddaanan ka dooranayn, naftayna waxay u dhimanayso haddaanan walaalo islaam u hormarinayn, axadkana dulmiya in la cafiya haddaanan jeclayn, kiina gooyana aanan xariirinayn, walaalayaal wax isku tarimaynay aanu kala soconno. alla ka cabso qofka noo soo jeediya haddaanan dadka ka jeclaanayn, xumaan markii nala ku arko qofka nooga naseexeeya haddaanan ducadiisa carabka ku badinayn, waalid iyo walaalo inaan wanaajinno haddaanan diyaar u ahayn, aqalka aan ku sugannahay muslim iyo ehel inuu ka dhaxeeyo haddaanan doonayn, walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabayna oo rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, haddaanan saacad walba qabri ka fakarayn, xanta carabkeenna aanan ka dhowrayn iyo beensheega, namiimada iyo hadallada xun haddaanan iska ilaalinayn, firaashka aan ku jiifanno sirteenna haddaanan ku qarinayn, owlaadda aanu dhalno haddaanan diin ku barbaarinayn, wax alla wixii alla raalli ka yahay keliya dad ka shaqeeya haddaanan noqonayn, qaladka aan galnana aanan toobakeenkiisa u degdegayn, walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabaynay
وربها لقى بقى سبحانه وتعالى ضد إله مسلعي هديسن دين تسلعين ضد إلهي سقر مسيحي هديسن صفك النبي خلاف ضد إلهي صحي وقمد بقى سدحن وصغر لقى كاني هديسن ليعين نفتو إني حمان تكد ظهيران ولا ريال نفتين آن ظهيرنا دلنا آن كدورنا سيدا هدان ييلين ولا ريال آن كلا سعنا يانا اسكو دنبابين ولا ريال الله قادر هدان نكبغانين قرآنك على أخرس إيا لكن هدان نكبغانين قيامة إيا قبر إيا وحي كدنبائي هدان نوديار قروبين الله قادر oo naga uwad badan inaan ishortaagayna hadaanan garanayn aanu kala socono walaalayaal yaanan isku dambaabine oo rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala walaalayaal macsiyadu waa shay aad u dhibaato badan wuxuuna ilaah qur-aankiisa ku yidhi dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo waramay nicmo ou axad addoommadiisa kamida ugu nicmeeyey inuusan alla ka qaadanayn ilaa addoonku asagu noqdo qof dulaysan oo diinta ku cayaara qofka daacada alle macsiyo ku bedesha shukriga alla lagu shukriyo kufri ku bedesha waxa alla lagu raalli gareeyo waxa alla carageliyo ku bedesha qofka sidaa yeela ayaa ilaah nicmadou u galay xumaan ugu bedelaa oo ay tahay jazaa'an wifaaqa amal mar waafaqsan wuxuu la yimid wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid alla addoommada dulmiya ma ahan walaalayaal aan dadaalno dulli aan iska ilaalino diin alla dhaqankeed aan u taagnaano sida tanu nooma habboonee xagga aan usoo laabanno macsiyada shayga la yidhaah waa shay xun dadka la yimaadana dulli ayaa u dambeeya ee haddaba walaalayaal nicmada ilaah noo galay aan garanno dad alla uba shukriya aan noqonno soo walaalayaal kama fakartaan sida ilaahay noogu nicmeeyey islaamnimada uu alla na siiyey nusuus aan dadka kala qaadan sida ilaah qaadashadeeda meela nooga waafajiyey annagoo kala durugsan sida ilaah noo walaaleeyey annagoo meel kale fo ka kala nimid sida ilaah noo kulmiyey annagoon dadka iska aqoon sida ilaah isu kaanyo baray annagoo aada u kala fogeyn sida ilaah isugu kaanyo xiray annagoon isjeclayn sida ilaah isu kaanyo jeclaysiiyey annagoon calol hooyo kasoo wada bixinsaan isugu hooyo u noqonay annagoon isdaryadayn jirin saan hadda isu xariirino nicmo alla sow ma ahan dad nicmadaa garta oo u sacayaya shukrigeeda haddaanan noqonayn walaalayaal aanu kala soconno yaanan isisirine waanan isku dambaabine rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim waidaa araada allahu biqowmin suu'a falaa maradda lah wamaa lahum min duunihi min waal allah subxaanahu wa tacaala wax qoon ku sugan oo nicmo ah inta ka qaato musiibo uguma bedelo ilaa ay naftooda khayrka ku sugan ka bedelayaan dhibkana lagama qaado ilaa alla u tooba keenayaan dad haddii ilaahay xumaan la doono meel ay xumaanta ka aadaan malaha iyo meel ay uga faka karaan alla sukadiisa wax makhluuqa u gargaara uma sugna walaalayaal aan alla gargaaro weydiisano diinta alle aan u shaqayno dulliga aan ku jirnana aan nafteenna ka dhowrno sidaas ayaa la doonayaa haddaba walaalayaal macsiyadu waxay qofka ku ridaa rucbi iyo argagax qofku hadduu dembi galana waxau ka baxa ammaanada waxau aada uga baqdaa mar kastaba ciriiri badan ahadkii alla ka baqa alla shay walbuu ka aamingeliyaa qofkan alla ka baqana asagaa shay walba ka baqa walaalayaal arrintu sidaa weeye haddaba rabbiyaan weydiisanaynaa inuu dulliga naga dhowro allow noo gargaar oo rabbow xaqa nagu galladayso asmaa'daada sifaadkaaga iyo kelimaadkaaga taamka ayaan allow kugu barinay allow qalbigaa naga engegee qalbiga noo qoy carabkaa naga xumaadee allow dikriga noo waafaji xibnihii baa xaqa ka jeestay allow xaaraanta nooga maskaxdeennii ayaa qaraabtay allow maskaxda noo noolay dadkeennaa diinta ka tegay allow noo soo hanuuni annaga ayaa docfi iyo laalaad nagu dhacay allow xaqa sare noogu qaad damiirkeenna allow mid nadiifa ka dhig xubbi adduunyo iyo xaaraan dalbid allow qalbigeenna ka saar
xaqdi iyo xaqdarro iyo muslimiin dhibid allow naga ilaali, kibir iyo kelmado xun allow shaqaha nooga dhigin, xariiq naareed oo laga caawo iyo xawdka nebigoo la waayo allow hanagu keenin, qabrigoo lagu silco iyo saqaro naareed oo la seexdo allow hanagu sedin, safka nebigoo laysu diidana allow hanagu keenin, lada naareed inay nafeenato laqdaba nala ku xakumo allow hanagu keenin, nafteenna allow daryaday nabiga dadkiisii naga yeel, naxariis allow noogu deeq iyo nasri aad adagu gacan ku haydid, allow haawiye naga dhowr oo hanuunkana waafaji, allow aayaadka alle dad u adeega naga dhig oo albaab naareed hanagu xirin, allow raxmadaada waasica dhinac weyn naga sii oo rasuulka raadkiisana raacsii oo rugta qabri hanagu xiriirin, allow salaada dad ilaaliyo safkii nabiga saaxiibba la noqda naga yeel, allow soonka dad xifiyo sakada dhab u dhiiba naga dhig, allow dad xajiyo adigee jaliila kaa baqa naga yeel oon jahanaba jirkooda feenan, rabbow kuu cabanay oo calaacal kuu soo gudbini, qulubteennii allow gubatay qaadir baad adigu tahaye, allow dhibka maanta jira naga qaad oo allow adduun ha nagu silcinin, aakhirana saqara naareed allow sahay ha nooga dhigin, rabbow dana aan leenaha jiraani ee allow na gaarsii, rabbow shahaadaan ku weydiisanay iyo sharci ilaalinti, allow shuuciyo dad ha nagala dhigin oo dariiqa nala soo joojinin, rabbow shahaadaan ku weydiisanay iyo sharci ilaalinti, rabbow waxaan ku weydiisanay xifdi qur-aan iyo diinta dhowrideed, rabbow waxaan ku weydiisanay xaqa dad u taagan inaad naga dhigtid, allow dadka wanaagsan dariiqaad marsiidayna marsii, allow dulliga dadkiisa meeshay ku tageen naga weeci, rabbowna hagaaji adaan kuu cabanaynaahe, allahayow baryaha aan maanta kuugu galliin noqonay oo qulubteennu ay jeclaatay oo nafteennu ay la walwashay oo aan dariiqa la mari la'nahay dhibka naga haysta xag diineed, allow naga bixi adaan kuu galliinahaye, rabbow dadkeennii hagaaji oo dulliga ka bixi, allow dadkeennii diin ku soo dabaal oo darakaadka naareedka dhowr, allow dalkooda hagaaji oo dowlo islaam u keen, allow dad walaalaa ka dhig oo xumaanta qulubtooda ka bixi, allow dib u walaalay oo deris hagaagsan ka yeel, rabbow wixii daalimiina naga qabo oo adaa ka garanayay rabbow amaalkaaga marsii, allow silaca aan ku jirno saqaro naareed ha noogu darin, allow ammaan la-aanta adduunka nagu haysata qabri ciriirigii ha noogu darin, allow dhibkaan dunida ku aragnay jahanaba ha noogu darin, allow dadka aan maanta aragnay noloshooda naga kaafi, allow aanan bani aadan gacanta u dhiganin oonan dadkaa bani aadamkaa hoostooda wax ka doonin, ee rabbow naga kaafi adaana kaafin karee, rabbow hadalkeennu wuxuu noqday laa xawla walaa quwata ilaa billaah, xasbana allah wa nicma alwakiil, xayaatadeenna marka ugu dambayda rabbow shahaadaan ku weydiisana iyo ikhlaas, allow qulubteenna ikhlaaska buuxi, carabkeenna mustaqiim ka dhig, runta dadka shaqeeyo oo lagu yaqaan allow naga dhig, diiwaanka dadka khayr kale kuwaad ku darta allow naga dhig, rabbowna hanuuni oo hidaayana saar, dadka hanuunsan allow nagu dar oo nala soo kulmi, ilaahow hana dulaynin adaan ku weydiisana wanaag haddaba allah subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanaynaa inuusan baryaheena nagu qadin. allah subxaanahu wa tacaala waxaan baryahaas ka dalbaday waqti aan aada uga rajeynayo inuu iga aqbalo, waxaan haddaba walaalayaal ay ballanteenu tahay inaan rabbi dhab u barino, dad isu duceeya oo ilaahay khayr ka dalbana aan noqono. waxaan alla ka rajeynayaa inuu allah subxaanahu wa tacaala meelaan joognaba khayr nagu soo jamciyo, qabrigeennana oo mugdi ka dhowro. haddaba walaalayaal dembiga ha yaraysanina, dembiga oo la yaraysaa waa musiiba, ee musiibadaa iska ilaaliya. daacada alle nafta ayay dahirtaa, dembiguna nafta ayuu qaribaa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha, waxaa sida dhabtaa liibaanay qofka nafsadiisa daacada alle ku dahiray oo diin xumada ka ilaaliyey, waxaa khasaaray axadka nafsadiisa aasay oo macsiya ku xaqiray oo meel daran ku riday oo daacada alle ka durjiyey. axadka caasiga nafsadiisa macsiyo ayuu ku aasay, makaanadeeda iyo sharafteeda ayuu qariyey, makhluuqa ayuu ka hoos mariyey, waxuuna noqday axad dulli iyo wax daran shaqaystay. walaal macsiyadu qofka waxay ku xabistaa shaydaanka xabsigiisa, macsiyadu daa'iman waxay sabab kuugu noqonaysaa shaydaanku inuu ku qafaasho, hawadu inay ku kaxaysato iyo shahawaadka, waxayna sabab kuugu noqonaysaa macsiyadu
cadaabka in lagugu xiro. walaalayaal cadowgiina ha raalli galaynina, caro alla ha shaqaysanina, caqiidadiina ha qarribinina, camalka saalixa ha yaraysanina, ciriiri iyo cadaab alla ka magangala, dadaal badan muujiya oo cilmi naafica alla weydiista. allah baan weydiisanaynaa inuu ciriiriga naga dhowro. allow adaan gelniin kuu nahay, gacanta kuu hoorsanaynaa, qalbigeenna dhibka haystana aan kuu sheeganaynaa. ee allow diinta dhab noogu hagaaji oo dib noogu soo dabaal, adigaan ku barinaye. walaalayaal gaajada adduunka raalli ku noqdaa, cudurka ku sabra ilaah u sheegtaa, dhibka idinsoo gaara ilaahiina u cabtaa. ogaada musiibo haddaad ku sabartaan janno inuu alla idinkugu bedelayo. walaalayaal dad xun oo xaqa garamara weligiin ha noqoninaa, ma habboona inaad diinta islaamka la garamara haddaba walaalayaal, shayddaanku waa waraabaha bani aadamka. haddaadan iska ilaalin si degdega ayuu kuu cunayaa, meel xun ayuu kaaga soo harayaa, dhib badan ayuu kuu geysanayaa. haddaba walaalayaal, intaan taasoo dhicin diinta alleh aan u orodno oo aan wanaagga ku dadaalno. dheeraanshada alla laga durgo waa maraatib, waxaana ugu dhib badan inuu qofku rabbigii iloobo oo qalbigiisa uu alla ka baxo. markaas ka gadaal dhibaatada qofka soo gaarta waxaa ka mid a munaafiqnimada, shirkiga, kibirka iyo xumaanta oo idil. walaalayaal, qofka rabbigii caasiya wou diloobaa, magaciisu wou baaba'aa, sharaftiisu way layacantaa, xurmad ma yeesho, ma farxo, sharaf ilaah uma yeelo, murug iyo tiiraanya kama baxdo, dulligana lagama dhowro. macsiyadu waxay qofka u soo jiidaa magacyada wanaagsan in laga tiro oo magacyo xun loo bixiyo. waxaa qofka caasiga lagu magacaabaa faajir, caasi, mukhaalif, musii, mufsid iyo khabiif intaba, walciyaadu billaah. ilaah baan ka magangelaynaa magacyada noocaasa. waxaa qofka mu'minkaa lagu magacaabaa mu'min, baari, muxsin, taqi, mudiic, alwaric, saalix iyo magacyada wanaagsan. axadka rabbigii ka cabsada allaha raxmaankaa ridihiisa ayaa u waajiba, jannada alle ayuu galaa, wuxuu ka cabaa xawdka nabiga. wixii alla bixiyo cidnama diidi karto, wixii alla diidana cidnama bixi karto, wixii alla soo dhoweeye cidnama fogeyn karto, waxa alla fogeeyana cidna sooma dhoweyn karto. haddaba muslimiin dadaala oo rabbigiin ka cabsada. oo haddaba walaalayaal, waxaan iska ogaanaa ha noqdeen u shaqaynta diinta alle. qofku hadduu dembi badan galo caqliga ayaa ka hallaaba. alla wuxuu qur-aanka ku yidhi, wattaquuni yaa ulil albaab. dadka cuquusha lahow iga cabsado alla leeyahay, iga baqa, amarkayga qaato, diintayda ilaaliya. wuxuu kaloo allah yidhi, fattaqu llaha yaa ulil albaabi lacallakum tuflixuun. allah ka cabsada dadka caqliga lahow, xaqiiqo waxaad ku tihiin adduunya aakhira inaad liibaantaan. wuxuu kaloo allah yidhi, wamaa yadakkaru ilaa ulil albaab. ma waansamaan oo wanaagga ma gaaraan dadka cuquusha la mooye dad kale. waxaa waansama, waxaa wanaagga qaata, waxaa diinta u orda waa dadka cuquusha leh, waa dadka rabbigood ka baqanaya, waa dadka garanaya in rabbi la xisaabtamayo. axadka rabbi raalli ka noqdo, ishiisa ayaa raaxaysata, naftiisa ayaa faraxda, qalbigiisaa noolaada, arwaaxdiisaa raaxaysata, noloshiisaa nadiif noqota, nicmo midda ugu fiican ayuu helaa. wuxuu ka badbaadaa laba iyo meel dhibaato badan. axadka taqiga ah naartaa laga durjiyaa, axadka taqiga ah silic baa laga dhowraa, axadka taqiga ah xiriirka allaa degdeg loogu xiraa hadduu diinta alle u adeegsado waxa ilaahay siiya sharaf iyo wanaag ah. taqi dhabana ou noqdo. walaalayaal, aan taqiyaal noqono, duni iyaanan isku hallaynin. rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam, addunyaa malcuuna, malcuunun maa fiiha. war adduunka naxariista alla laga durjiyey, wax dhex joogaa way lacnadan yihiin, ilaa dikra allahi wamaa waalaah, ama wacaalimin wamutacalim. intaas baa laga istisnooday. intii kale dunida waxaa laga dhigay waxaan qaymo lahayn.
waxaan qaymo lahayn ayaa loo muujiyey. walaalayaal, haddaanan rabbi ka cabsan xayaatadeennu hagaagi mayso, waayo salafka waxaa laga hayaa inay qaarkood yidhaahdeen rabbi haddaan caasiyo waxaan gartaa ratigayga ayaa madaxiisu isbedelaa. waxay odhan jireen dumarkeenna ayaa dhaqankooda isbedelaa. waxaana ka dareema maalintan alla soo caasiyey, waxaan aqalkaygan ka dareema macsiyadaas dhihi jireen. maxaa yeele dadkiiba isbedel ku dhaxayaa, wax kala imaanaya. wa hada mushkila, wax barakayn karoon alla ahayn ma jiraan. rabbi baa wax barakeeya, koonka allah iska leh, khaaliqiisa ah, maamulkiisa haya. walaalayaal, wanaagga aan ku dadaalno oon rabbi ka baqano subxaanahu watacaala. wasaatanu dan ma ahan ee diinta allah loo shaqeeyo. walaalayaal, dad diinta alla u shaqeeyo wanaagga ku dadaal aan noqono. waxaan idinka rajaynayaa inaad iska kii cafidaan hadalkayga meelaha qaar haddaad u begi kari weysaan. waxaa laga yaabaa inay jirto duruuf iyo qadar keentay hadalkayga in meelaha qaar ay bedelaadaan. walaalayaal, qofka cimrigiisu waa wax yar, xayaatada intay nagu jirto. xayaato ka xuno ma jirto axadkii rabbigii ka jeestay xayaatadiisa oo alla qayrkii ku mashquulay. noloshiisaasna waxaa ka khayr badan nolosha xayawaanka. insaanka noloshiisa waxaa ugu khayr badan in qalbigiisa iyo ruuxdiisu nooshahay. qalbigu ma noolaan karo qofku inuu allihii khalqaya u laabto dikriga alle oo weheshado mooyaane, rabbi inuu u dhowaadana uu jecel yahay. xayaatada noocaasa qofka waayey khayr kulligii waa waayey. axadka aan rabbigii ku xirayn oo dunidaba orday khayr kulligii waa ka tegey. haddaba axad walbuu ogaaw, adduunka oo dhan haddii lagu siiyo ma kuu bedeli karto diinta ilaahay. ee qof walbow diinta alla ilaali. alla xayiya oo waxa allah waa alla xayiya oo wax walba kara, waxaad u baahatana wuu ku siinayaa. walaalayaal, hadalka aan danu ku jirin halayska ilaaliyo. addoonku wuxuu ku hadlaa hadal uusan ka fiirsan, sababtiisana jahanabo ayuu ugu hoobtaa. waxaad u badan ama ilaahbaa uga raali noqda. hadalkii khayr le waa wanaagsan yahay, laakiin hadallada aan khayrka lahayn ha laga fiirsado. shaydaanku cadow ayuu noo yahay ee aan cadow ka dhiganno oon diinta islaamka ilaalino. intaa ka gadaal waxaan la hadlayaa walaal muslim ah oo walaalkay ah iyo nafsadeydaba. haddaba walaalow, rabbigaa ka baq oo diinta islaamka ilaali. nafsadeydana sida aan kugu odhanayaan ku odhanayaa, lagama maarmaan weeye cabsida alle inaan qaratir ka dhiganno oon aqaladeenna ku hogaamino oo aan nafsadeenna ku dhaqno, ku wadno, oo aan aswaaj haddii ilaahna siiye aan ku maamulno. taas waa lagama maarmaan. walaal, sawjada waa marada aad qabtid, maradaada laguma cayaaree waa la wanaajiyaa. wasakh hadday yeelato waa la dhaqaa. waa labiskaagii, waa cawradaada tii qarinaysay, waa sirtaada tii xifdinaysay, waa daryadayntaada qofkii kaalin ka qaatay, waa nolosha qofka kula wadaagay, waa dadka makhluuqa oo dhan qofka kaaga suka maray. walaal, waxaa waajib noqday qofkaa in la daryadeeyo oo loo dulqaato oo la wanaajiyo. hadal xun ayaysan mutaysan, gacan in loo qaadaan habboonayn, oraah dhib badan oo kulul in lagu yidhaahdaan habboonayn, wax loo heli kara in laga hagradaan habboonayn, xumaan in lagu eegtaan habboonayn, ayadoo silacsan oo gurguuranaysa jika in loo diraan habboonayn, aqalka in shaqadiisa looga taga keligeed ayaan habboonayn. waxaa wanaagsan in lala shaqeeyo oo la daryadeeyo oo dhibka laga qaado intii la karo, gacan laga geysto nolosheeda oo dhan, xaqa in la baro, qur-aanka loo sheego, sunnada in loo akriyo, dariiqii nabiga loo tilmaamo sala allahu calayhi wasalam, waajibaadka hagaajintiisa in lagu koontaroolo, xaaraanta laga xifdiyo, xaqdarro ka taga iyo xaaraan ha u dhowaanina in lagu yidhaahdo. walaalayaal, sidaas ayaa wanaagsan. arrinka loo baahanyay sidaa weeyaan. haddaba walaal, rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala. waa waxaa nafteeda jeclaan la in laga helo. allah subxaanahu watacaala wuxuu cabiray tacbiir cajiib badan. rijaashu waa qawaamin, danaha iyo xawaa'ijta dumarkay u taagan yihiin, diintay ku ilaaliyaan, dulliga iyo sircay wax ka qabtaan oy ka dhowraan, dib hadduu soo gaaray garab siiyaan, dan hadday leeyihiin ayay danta la qabtaan, waxay qaban karaan bay aqalka ugu keenaan. saas ayaa lagu ogaa. laakiin maanta wax kala bedelay.
walciyaadu billaah waa dhib aada u weyna. haddaba walaal rabbi ka baq subxaanahu watacaala. walaalow dumar waa dad jilacsan, waa dadaan toosnayn, istiqaamadu aada ugu badnayn, nocooda ou saa'id yahay, inkastoo toosi tiraahdo, inkastoo dhoodhoobtood wanaag badan u soo jeediso, inkastoo khayrka kulliga u dardaaranto, inkastoo waxay kugu yidhaahdiinba aada dheg u jaraqsiinin, ogow oo waa dumar oo shay aan khayr ku jirin bay dhegahooda u duleelaan. dowlad baa daba walaal sidii la doono inaan laga helin ayaa sharcigu aada ugu laalaabtay in badan. dad khayr badan ayaa ku jira oo aan kumanaan ragaa la siisan, laakiin waxaa loo tooghayaa mar walba waxyaalayaa badan inay imaan karaan. qarnigaan ku jirno qarni saacidaya ma ahan. dadka maanta joogaa xanta iyo beentay isu dardaarmaan ilaa wax alla u naxariistay mooyaane. haddii arrinta sidaa noqotay walaalayaal ha la dadaalo oo rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala. inanka aan ka naxayo iyo nafsadeyda oon aada uga sii naxsanahayba waxaan ku oranayaa, dumarka haddaanan labiska dhiganayn oo sida aratirka aanan u daryadaynayn, ha hodinina, xumaan ha ugu yeerinina, wanaagooda haddaanan la diyaar ahayna waray ha laysaga tago. xaqiiqadu sidaa weeye. axad aan u dul qaadan dumarka waxba kuma wadi karo. dariiqaad rabto kuugu toosnaamaydo ayuu yihi sala allahu calayhi wasalam. markaa qof walbow waxaa lagaa doonayaa inaad waxyaalo badan ka qabatid arrinta tan. haddaba walaal waa inaad ogaataa zawjo waa adiga maradaada, waa tii aqalkaaga hagaajinaysay, waa tii owlaad haddii alla ku siiyo u hooyada aheed, waa adiga jirkaaga tii xambaarsaneed, waa adigoon wax cunintaan jiifanaynin, waa adigoo dhibaataysan midda dhibkaaga ka walwalaysa, waa waxa ku soo gaaraa midday wadnaha ka bedelayaan, waa maskaxdeedu midday daa'iman adiga arrintaada ku xiran tahay. qofka sidaasa walaalow lama xumeeya, waa la daryadeeyaa, lama dilee waa loo naxariistaa, lama duleeye daliilkaa la baraa, lama dhaqan dareeye dhab baa loo dhaqaaleeyaa, lama inkaaree ducadaa dhab loogu halhaleeyaa, xumaan lagama sheegay samaanteedaa dariiqyada lagu hayaa. waxaa alla looga mahadiyaa in badan wanaagga ay kuu gelayso, ducadaa loogu dhawaaqaa markay khayr kuu dhiibtaba, amar wanaagsan markay kuu qabataba ilaaha kuu labanlaabaa jawaab looga dhigaa. sidaas ayaa guusha lagu gaaraa. ee haddaba walaalow dadaal. haddaadan walaalow inanta caradeeda u dul qaadan, hadal hadday kugu tiraa haddaadan sabar badan la imaanayn, maxay ii tiriso wadaad maahan haddaad oran doontid, malaa'ig aan dambaabayn oon dadka qartamin haddaad u haysatid, walaalow haysnoojina ee dumarka ka fiirso. naftaydaan ku leeyahay iyo nafta kaloon ka naxaya intaba. walaalayaal arrintu ma hagaagsana haddaan diinta dhab loogu dhaqmin ee diinta hala ilaaliyo. bidca diin noqon mayso, baatil alle loogu dhowaan maayo, xaqa aan si dhaba u ilaalino. sidaas ayaa nalaka doonayaa waa haddaan wanaag doonayno. haddaba walaal waxaa laga doonayaa ninka muslimkaa inanta muslimada uu qabo inuu aratirkeeda dhaqo intuu kari karayo, inuu jika la galo oo muhiimada aqalka wax ka qabto, wax badan oo ay qaban lahayd inuu yidhaah walaal ka naso, wax badan oo ayada ku culus inuu garab badan ku siiyo, wax diinteeda dhaawacaya inuu dhab uga ilaaliyo, xijaab la-aan inuu ka ilaaliyo, safar maxram la-aana inuu ka waardiyeeyo, waa inuusan isagu dhergin ayadoo gaajo ku seexatay, waa inuusan dharka kala bedelan ayadoo arad ku seexatay, waa inuusan aabihii xariirin isagoo ehelkeeda ayada gooye iyo walaalaheed iyo waalidkeed, waa inuusan walaashiis isaga la dhalatay saraa u qaadin, walaasha ayada la dhalatay isagoo ihaanaysanaya, waa inuusan ku oranin hadal canaana oo carageliya inantaa, waa inuu weliba ka ilaaliyaa wax kasta oo dhiba saacadday wallac noqoto ilaa ay ka dhali doonto. sow lama yaabtisay u wallacaydo dhibka ay qabto ayadoo caloosha u buuxdo oo mataga marar badan soo daynaysa oo majaheeda xanuun badan uu ka hayo, aneemiya uu jirkeedu la bararay, ayay jeceshay inay ku raalli garaydo, sariirtaada gogasho waxaad cunto ay kuu diyaarido. qofka noocaasa miyaa la dhibaa, lasa lugooyaa, lasa dhaqan dareeyaa? waa wax la wanaajiyo oo markaad aragtaba sujuudu shukri alla loogu dhaco subxaanahu watacaala. walaal saas ayaa la doonayaa. laakiin haddaba walaalow daryadayn haddii aadan samayn karin, asaadan dhib badan xamili karin, guurka layskuma lugooyo, dumarkana been looma sheego. haddaadan walaalow u diyaar ahayn matag badan oo qofkaa ka yimaada inaad ka tirtid, dhareerkeeda inaad dhulka markuu gaaro jirkeeda aad ka tirtid,
si walba aadan u diyaarahayn inaad dhabta ugu qabatid. haddaba walaalow dumarka lama lugooyo, guurka waa la iska daayaa. xaqiiqaduna sidaa weeye, aanu dadaalno oo aan diinta alla ilaalino. sow ma ogid shahwo oo dhib badan inay kaa xambaartoy adiga aada kuu wanaajinayso. sow ma ogid jir dadka laga qariyay in adiga lagu tusayo. sow ma ogid maxal aan dadka loo soo dhoweyn in adiga laguu soo dhoweynayo. sow ma ogid meel aan dadka lala jiifsan in adiga lagula jiifanayo. sow ma ogid hadal dabacsan oon dadka lagu dhihin in adiga lagugu dhahayo. qofka sidaa kuu wanaajiyo intaa kuu qabtay, jirkeedii dhammay kuu dhiiboo adiga dhan isu kaa dhiibay, agtaada qof la qafaalo asiira ku ahaaday, ilaah jirkeeda aayada kuugu baneeyey, amaakin lagaa mamnuucay hadda laguu qayxay, albaab aan dadka kale lala gelin adiga lagula galay, hadal macaan oon dadka lagu odhan adiga lagugu yidhi, gacan aan qof kale dusha laga saarin adiga dusha lagaa saaray, makaan aan dadka kale lala huwan aan lagu baalgelin adiga lagugu baalgalay, kulay aan dadka kale la siin adiga lagu siiyey. qofka noocaasa miyaa la xumeeyaa? maye waa la wanaajiyaa. haddaanan walaalow daryaday karin, dumarka been looma sheego, lamana guursadee, waa la iska daayaa. ee rabbi ka baq subxaanahu watacaala oo walaal aada u dadaal, si wanaagsan wax u ilaali, waa sida layska doonaya. ilaahay hana waafajiyo. dad noocaasa haddaanan ahayn, sow ma habboonaan lahayn guurka inaan iska dayno. sow ma habboonaan lahayn gabdhaha inaanan hodin oonan been u sheegin, ee aan noqono dad wanaagsan, daana noqona aan iska dayn. waxa kan waa waxyaa badan. rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala. walaalow inanta waxa dhibaa laga dhowraa, waan kula guursan iyo xaggaan ka dhicin laguma handado. adigoon dhaqaalo lahayn baan waxyaalo xagga ka samayn laguma yidhaahdo. waxaadan u samaynayn looma ballankaadoo beena looma sheego. hadal dhaba mooyee wax kale looma soo jeediyo. cabsi allah loo dardaarmaa aroorta hore iyo galabnimada intaba. sariirtaa wanaagga loogu sheegaa iyo kasukadeeda intaba. khayrkay kuu qabataa looga amaal hayaa lagamana meel dhaco. dharkay kuu feeraydaa jannaha allaha kuugu bedela lagu yiraa. sidaas ayaa loo daryeedeeyaa. haddaadan yeeli karin walaalow lama guursado, dumarka been looma sheego. ee rabbi ka baq subxaanahu watacaala. waa inaan garanaa wanaagga oon waajibaadka ilaalinaa. taas ayaa la doonayaa. walaal haddaad orod doontid, maxay gabdha iigu dhashay haddii gabadhu gabdha kuu dhasho? hadday ilma dhali weydana aada oran doontid waa maxay naagtaan ilmaha lahayn? hadday in badan jiratana aada oran doontid way igu jiro badatee naag kalaan raadsanayaa. hadday cuntada kuu samay kari oqoo weyda amay samay kari weydana aada oran doontid gacmo beeshadu waa maxee? dadkoo dhanna ay kaaga suka martay, jirkeedana ay sidaa kuugu dhiibtay. qofka noocaasa hadallo xun laguma yihaahdee, waa la wanaajiyaa. walaalow dumarka haddaadan wanaaji karin, dhibkooda haddaadan xamili karin, wanaagooda haddaadan ka sugri karin, samaan haddaadan sabab ugu noqon karin, saqaro naareed inaad ka badbaadido haddaadan diyaar u ahayn, wanaagga oo dhan haddaadan ku saaxiibi karin, been looma sheego, dumarka lama guursadee, waa la dhaafaa. rabbowna wanaaji oo samaantana waafaji. haddaba walaal dadaal oo rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan ilaahayna laycin, uusan meel xun allana dhigin subxaanahu watacaala. haddaba walaal, shilinkaad haysatid baa loo dhiibtaa. waxaad ku ogeed lagulama xisaabtamee waa la aaminaa. waxay kuu keento waa lagu qancaa ee lama fiirfiiriyo. lama yihaa wuxuu yaraan badanaa iyo wuxuu waa sidee. wax lagama sheegtee warkeeda ayaa la aqbalaa. sidaas ayaa loo wanaajiyaa. ee walaalow haddaadan wanaaji karin, dumarka lama guursadee, been looma sheegee, waa la dhaafaa. rabbi ka bog subxaanahu watacaala. walaalow inanta aada qabtid waa la wanaajiyaa. ayada saad u wanaajidaa dadkay jeceshay loo wanaajiyaa. saaxiibadeed baa la daryadeeyaa. ehelkeedaa la wanaajiyaa. soo dhoweyn iyo hadal fiican baa dadka lagu camimaa. dhaqaala dadka lalama kala gaaree, dabci degan iyo hadal macaan iyo salaan aada iyo aada u dabacsan baa lala kala gaaraa. iyo rabboo janno loo weydiiyo. ee walaal rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala. khayrkana aada ugu dadaal. waxaan alla ka rajaynayaa inuu alla samaantana waafajiyo. haddaba walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa cabsida alle intay nagula ekaato unba allana wanaajinayaa. intaa ka gadaal walaalayaal, waxaan u sheegayaa walaalahayga muslimaadka ah oo ayagu guursanaya ama walaashaydaba, haddaba walaal rabbi ka baq oo xaqa ilaali. walaal rabbi ka baq oo xaqa ilaali. xumaan ha u dhowaanin. sawd alla ku siiyo iyo kii alla ku siiyey ha xumaynin. daryaday oo diinta garab ku sii. dulli ka dhowr oo xaqa ugu yeer.
xagga markuu ku socdo aada ugu soo dhaweey xaaraan markaad ku aragtid digtiin aada u yaab badan sii xawdka nabiga inuu ka cabo ugu duceey wixii xawdka nabiga lagu gaari lahayna adugu kala shaqeey saasaa lagaa doonayaa walaal haddaadan yeeli karin walaal rijaal been looma sheego lamana guursadee waa layska daayaa ee rabbi ka baq subxaanahu watacaala walaal ku shaqayso jannada alle raalli garaynta sawjkaaga salaada ood xigdigid jirkaadood xaaraanta ka dhowrtid ramadaankooda si dhaba u soontid iyo ninkaadood qosol iyo raalli garayn kula noolaatid jannaa lagu galaa jahanabaa looga badbaadaa jaliil allah raalli kaaga noqonaya xiimaa lagaaga xifdinayaa xawdka nabigaa looga cabaa xariiqa naartaa lagaaga dhowrayaa dulli oo dhanna waa lagaaga ilaalinayaa ee walaal daliilka sidaa ku tusay aada u qaado oo daliil ka dhigo oo dulliguu kaa dhowriya dhab ugu soco aada guulaysatid adduuniya aakhira intaba haddaadan walaal wanaagga u taagnayn dadka guur looma sheego lagamana balan qaado ee waa layska dayaa beenta iyo darxumada intaba walaal aada u dadaa oo rabbi ka baq subxaanahu watacaala aada arrin loogu baahanya weeyaan in inanta muslimadda ay sawjkeeda wanaajido walaal xaaraan ha ku degdegin maadiyad ha noqonin dunida ha jeclaanin ha oranin maxaa aniga la iisii waaye dahab iyo dheeman ha ku xujaynin ninkaaga dhago iyo silsilada surka lagu xiro qurux gaara oo kuugu kordhaysa ma jirto hadduu heli kara ha ku siiyo hadduusan heli karin iska day dahab walaal jirkaaga ha ku xirin waa lagu cadaab galaahe lacag kastoo alla ku siiyo dahab iska ilaali dadka dahabka ku raaxaysaa aakhira kuma raaxaysanayaan ee rabbi ka baq subxaanahu watacaala rasuulkii allah inantiisa u diiday sala allahu calayhi wasalam walaal xujaha ka dhigin maa dheeman la ii iibiyo maa fida layga lulo maa sagaal kalar la ii keeno maa saalootooyin la ii dhigo maa aqal kala jeeda xagga layga soo geliyo xujo sidaa ha ka dhigin oo diinta meel ha uga dhicin walaal rabbigaa ka baq oo xaga dhab u ilaali walaal waa inaad raalli ku noqotaa inaad aqalkaa tegaysa u lugaydid ood sidaa ogolaataa walaal qarashkaagu waa inuu noqdaa mid xadidan oo aada u yar xoola lagu tunto in lagugu curowso ha ogolaanin dibiyo kuraasa in laguu dhigo ha ogolaanin tv iyo qalabjaa in aqalkaaga la keena ha ogolaanin waxaan diinayn in aqalkaaga looga dhaqmo ha ogolaanin rabbigaa ka baq oo diinta qof u taagan noqo gurigaale ha aadin kufri iyo ilxaad iyo dadkii ha isu dhiibin xumaan dad ka shakeeyaa jire gaalada haddaba ordin diinta alla qof jecel oo dadkeeda daba socdo noqo wixii dulliya alle ka magangal wixii wanaaga alla weydiiso xaqu waxuu jiraa xawdka nabiga meesha loo maro waa kitaab iyo sunnada ee saxiixa ah kaalayoo mar oo dulliga iska ilaali haddaba inan yahay rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala walaalayaal haddaanan dadaalin waxaan gaaraynaa ma jiraan haddaba walaashayda muslimadda ahay waxaan kugu oranayaa walaalay rabbigaa ka baq walaalay sawjkaaga raalli garay gacanta dusha ka saar waxaad ku tiraa walaal ilaah baan ku dhaartee hurdaanan ku indha kuulan cuntaanan si dhaba u cunin jiif ayaana dhinacayga dhulka u dhigin ilaa aada raalli noqotida iga raalli noqo haddaba walaal wanaaji shayguu kuu soo iibiyo allow wanaag kugu amaalmari dhe khayrkuu kuu galo walaal amaalkiisa garo amaalkiisa ha ka dhicin meel hauga dhicin wax laguu keenay ha xaqirin wax suuragal noqo waaye ha kula kala dhimanin waxuusan qaadi karin ha ku qasbin dad uusan wax sii karin haddaadan wax siin ima rabtid ha oranin waxaan anigu doonaya haddaan lay iibin waa laynacay ha oranin adduunka samar oo dulligiisa iska dhaaf oo kumanaan in lagu siiyo aan shubha ku jirto shilin la-aan adigoo jooga ka jeclaaw sharcigaa sidaa ku wanaagsane walaal sidaa yeel oo rabbi ka baq subxaanahu watacaala waxaan alla ka rajaynayaa in dad wanaagsan alla naga dhigo walaal rabbi aan ka baqano diinta ilaalino walaal ninka ku qabaa waa kii labiska kuu ahaa waa kii hoy inaad tegtay sabab kuugu noqday waa walaalkii dadka kaaga sukeeyey oo aada baalkaaga u ogolaatay jirkaad ummadda u diiday waa kaad jar dharka uga qaaday gacan aadan dadka u qaadin waa midkaad u qaadood ku soo dhaweyday amaakin aan dadka ka durjiday waa kaad u dhaweysay walaal inaad xumaydo hadal xun ku tiraahdo waxuusan qaadi karin dul saartid aflagaada aada u soo jeedisid walaal kuguma habboonee wax kastoo kugu yimaada haddaan dembi laguu dirin asan diinta meel looga dhicin walaal iska oo u dulqaado oo dunidu waa maalingelinkeeda meel yacni sharafta laysaga qaada ma ahane jannadaada shaqayso oo allow jahanaba iga badbaadi dheh diintaan ilaalinayaa
sawjkaan raalli garaynaya ee safkii nabiga allow igu dardhe saas ayaa wanaagsane allow nagu dar safka nabiga sala allahu calayh wasalam. walaal waxa wanaagsan inaan khayrka dhab ugu soconno. waa ilmahaaga aabbahood, waa labiskii jirkaaga, allahu akbar, waa waxa aad qof kale kula dhici weydid kaad kula dhacdid, waa hadal aadan dadka kale u quurin kaad u guurtid, waa jir aadan dadka kale u ogolaan kaad u ogolaatay. say ku dhacday walaal inaad samaysid, say ku dhacday inaad dicaayadaysid, say ku dhacday inaad sirtiisa fidaysid, say ku dhacday inaad maalin walba wax oo ka naxa ku tiraahdid, maa hadalka u macaydid, ma gacanta u dabcisid, ma oraah fiican u soo jeedidid, ma dhibaatadiisa u dulqaadatid. sidaa ayaa wanaagsanee walaalay maad yeeshid oo rabbigaa ka baqatid subxaanahu wa tacaala. miyaadan walaalay janno ku doonayn raalli garaynta sawjkaaga? haddaad janno ku doonaysid wanaagga qaado oo rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala. walaalay ha ku oranin haddaan waxa aan doonayay aan la helin waxba ma hagaagayaan. dhinaciisa meeshu u ogolaado raalli uga noqdo, dhinacaaga raalli uga noqo. gaajo maantuu ku seexdo kula seexo, maantuu quuto la quudo, markuu arada la arad, markii jira soo gaarto jiradiisa u dulqaado. walaasaas ayaa la doonayaa ee wanaagga ku dadaal. sirta sawjkaaga iyo adiga dadka ha uga sheekaynin. aqalkiina waxa ka dhaxay albaabka ha ka bixinin. sariirtiina mid adinka idinku kooban ha noqoto. labis adinka aada labis isu ah oo wax walba iska asturana waa inaad ahaataan. sidaas ayaa wanaagga lagu gaari karayaa. haddaba walaalayaal, guud ahaan kama gaari karo waxyaalaha aan rabi lahaa inaan aada u wada sheego. waxayse ila tahay walaalayaal, haddii war laydinku dhihi lahaa warar baan idinku idhi, nafsadeydana haddii war lagu dhihi lahaa sidaas oo kalean war ugu idhi. waxaan idinka rajaynayaa walaalayaal inaad dhegaysataan warkaa oo aad ku dhaqantaan wixii idinka anfaca. haddii aan meel idinkaga dhacay oo hadalla aadan rabin aan idinku idhina aada iska kay cafidaan. waxaan jeclaan lahay walaalayaal inaan qaylada aqaladeenna lagu soo bixin. waxaan jeclaan lahay deris walaalo ah oo diin ku wada dhaqma, oo dulliga iska ilaaliya, oo weel wax ku wada cuna, oo shaqo wada qabsada, oo kitaab wada barta, oo meel ka wada adeegta, oo qofba qofka kale inuu jiibka ugu adeego oo jecel yahay inaan noqono. ilaahna ha naga dhigo. waxaan jeclaan lahay inaan firdowsa deris isugu noqono, oon sariira isku booqanno, oo ilaah nagu daro kuwa alla yidhi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun. gabalkood gabalka kale ayuu sariiro korkood ayagoo ah oo sidaa wax isku weydiinaya. ilaahay dadka noocaasa inuu naga dhigo ayaan rajaynayaa. ee haddaba walaalayaal aan dadaalno. dadka rabbigood ka cabsadaa maqaam aamina ayay ku sugan yihiin. riddo iyo raxmad allay haystaan. walaalayaal, dunuubtu waa shay dhibaato badan, qofka dulligay gaarsiidaa. towbada alla loo tooba keenana darajo saraa lagu koraa. ma waxaad ka aamin noqoteen cadaabka allah? soo ma ogidin in ibliis lagu lacnaday sujuud ou mar diiday, aadam janno looga soo saaray geed ou mar cunay, saacad walba in la dembaabo wanaagna la sheegaasay ku suuro gashaa. rabbi aan ka baqanno subxaanahu wa tacaala oo aan dulliga iska ilaalinno. waa inaan ogaano alla inuu yidhi walan yanfacakum alyawma id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun. wuxuu rabbi noo sheegay dadkaa nafsadooda dulmiyey inaysan anfacin maalintaa waxa la yidhaahdo yani isu tegid iyo waxqabasho. wax anfacaya ma jiraan, wax idin anfacaya maanta malahan bu alla yidhi. maxaa yeele waxaad noqoteen dad daalimiinta cadaabka dhexdiisay ku jiraan. wax anfacaya maanta tan oo cadaabkii ka badbaadinayana ma lahan. wax cadaabka naga badbaadiya ilaahay hana siiyo, asagoo hanaga badbaadiyo, cabsidiisa ha nooga badbaadiyo, qulubteennana alla ha noo hagaajiyo. carada alla dadkay ku dul dhacday ilaahow hanagu darin. ee qalbigeenna nuur geli, carabkeenna nuur geli, allow dhagaheenna nuur geli, gacmaheenna iyo lixaadkeenna oo dhan nuur geli. qabrigana allow noo egtayni, adiga ayaa kare. haddaba walaalayaal, waxaan rajaynayaa hadalkaygu inuu gabangabo marayo, oon soo gabangabayn doono shariidadaas ayada ama cajaladaas. dhegaysta walaalayaal, hadday mid intifaaca la tahay oo hadalka ku duuban uusan mataatac ahayna hadal khayr ku jira yahay, xisbiya aniga i dhegaysiiya, adinku dhegaysta. mid aan isku canaanano oon isku waaninna ha noqoto. camalkeennuna yuusan noqonin kii allah yidhi subxaanahu wa tacaala marka laga sheekeynay dadka khayrka daran. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء
حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والعياذ بالله. dadka diintan alla ku gaaloobay oo dhaqankeeda la yacay acmaashooda waa warar qorraxay wiiro qofka ooman oo biyo u malaynayo markuu yimaadana meesha wax yaala ma jiraan iyo wax lagu haya midnaba wax camal ah oo laga aqbalayo iyo wax meel u gaaraya midna ma jiraan qofka mujrimka hay walaalayaal waa khatar ilaahu dadka noocaas ah nagu darin ee siraadka mustaqiimka natus oo ilaahu hana luminin oo wax daran allow gacanta noo gelinin rabbow hana dulaynin ee dulaga naga dhow aqala wanaagsan allow noogu daa awlaad kuwana sida allow baariyaal ka dhig waxaan baariyaal in allow adduunka nooga saqiiri ama hana siinin adaahili kare rabbiyo adan ku weydiisan adaa mixigeena ah adaan gargaarkaa sugayna rabbiyo adaa qur'aanka ku yiri wa inna allaha la macal muxsiniin alla muxsiniinta ayuu mixigoodaya waxuu kaloo allah yiri wasbiru ina allaha maca asaabiriin sabra alle saabiriintuu micigooda yahay waxuu kaloo allah yidhi ina allaha maca aladiina istaqow waaladiina hum muxsinuun rabulciza subxaanahu watacaala dadkaa khayr kale ayuu micigooda nasri iyo gargaar mar kastaba la yahay. haddaba walaalayaal allah mooye macbuud kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro. alla aan jeclaano, alla aan weynayno, alla aan khayr ka rajayno, alla aan ka cabsanno, rabbi aan talada u dhiibanno, alla aan u laabanno. axad alla ka soo haray oo la jeclaadaa ma jiro. wax alla ka soo haray oo wax laga rajeeya malahan. axad aan alla ahayn lama tala saaran karo. magaca alle magacaan ahayn laguma dhaaran karo. waxaan alla ahayn looma toobo keeni karo. amarka alle waxaan ahayn in la fuliyo ma ahan. jadaa'idda iyo dhibaatada markay jirto waxaan alla ahayn lagama kaalmo dalbo. cidaan asaga ahayn looma sujuudo. cidaan asaga ahayn wax looma gowraco. magaciisa magacaan ahayn alla wax laguma gowraco. magaca rabbi bisbaa wax lagu gowracaa. khayrka ayaa alle subxaana watacaala dartii loo fulinayaa. wahaakada wuxuu rabbi odhanayaa markuu ka hadlayay dadka khayrka lala doonay faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja. axadka alla khayr la doono qalbigiisa ayuu alla islaamka u waasicayaa una sharxaa. qofka dhibaato lala doono soo ma ahan xabadkiisa ciriiri ayaa islaamka looga dhigaa. ma qaadan karo, ma geli karo, ma rabo, uma soo jeedo. wax balaaya ku dhacday weeye. awliyada alle ayaa guulaysanaysa. alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. awliyada alle yeeyihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. waa kuwa allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyey, rabbigood talada u dhiibtay, waa kuwa rabbigood ka cabsaday, waa kuwa iimaankoodu marka aayaadka alla lagu dul akhriyo u kordho oo ilimeeya. waa dadkau ilaah nagu yidhi fasawfa ya'ti illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna. alla wuxuu la imaan doonaa koon buu alla la imaan doonaa uu jecel yahay, ayaguna rabbi jecel oo diinta u taagan oo khayrka ku socda. qofka muslimkaa iimaan xagga lagama helin ilaa oo wax kasta alla ka jeclaado, rasuulkiisa ka jeclaado, diinta oo wax kasta ayada dhaafsado oo ayada kaliya u taagnaado. walaalayaal adduunka kana looma abuurin. ilaahay cibaadadiisa noo abuuray maxaan dunida isugu dhibaynaa? risqiga allah noo kafaala qaaday maxaa nafteena u dhibaynaa? qofkii alla doona alla wou helayaa. qofkii alla helaana shay walba waa helay. qofkii alla ka tagana shay walba waa ka tegey. ilaahu wax kasta adaankaa jecelnahay ee ridahaadana waa faji. kuwaad ka raalitay nagu dar, kuwaad firdowsa seexdana allow nagu dar. allowna saamax oo noo gargaar oo muslimiinta meel ay joogaanba nasri degdega rabbow ugu daar oo gacantaada ku jira. haddaba walaalayaal dad ilaahay ka baqa aan noqono. daarta adduunyada waan ka tegaynaa. daarulbarsakh baa naga dambeeya. daarulqaraar baa kasii dambeeya. fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayaa laysku oranayaa. maalinta sidaa la yidhaahdo dadka sare ood adugu u nicmayda allow oo carshiga ka harsanaya kaa oo kulaylkay dadku arkeen aan arkayn oo ciriiriga halkaa ku jiray kulligii ka nabadgelaya. allah ayuu kuwaa nagu dar. adaan ku barinay rabbiyow noo gargaar.